رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد بري وكو guda jira booqashadii rasmiga ah ee shalay uga bilaabatay dalka Djibouti ayaa maanta booqday magaalada Carta oo ah halkii lagu yagleelay jamhuuriyaddii saddexaad ee Soomaaliya kadib qaran burburkii. magaalada Carta ayaa ku suntan taariikhda sooyaalka dawladnimada Soomaaliya iyadoo lagu xasuusto madashii dib u heshiisiinta iyo dawlad dhisidda Soomaaliya sanadkii 2000 gobashaasi uu fidiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele la isuguna keenay erga matalayay guud ahaan bulshada ku nool jamhuuriyadda Soomaaliya si ay uga tashadaan aayahooda una dhistaan dawlad loo dhan yahay. رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية وفدي la socday oo gaaray magaalada Carta ayaa lagu qaabilay soo dhaweyn iyo farxad isagoo uga mahad celiyay soo dhaweyntooda walaaltinimo waxaana ku tilmaamay kuwa jecel mar walba horumarka iyo dib u soo kabashada walaalahooda Soomaaliya. dowladda iyo shacabka Djibouti ayaa ilaa xilligaas oo maanta laga joogo 22 sano waxay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed la garab taagnaayeen taageero dhinac walba ah taas oo ka marakacaysa xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Djibouti. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Djibouti.